وأنا صور طيب وحبيبي يا إبن كنا أبو يا عبد الكريم اسمع سلام يا سلامتي أيها سلام يا تمام مرتبة قال قبل سلام يا وينها يا قبل بيرون سمعت تسكوني أبي أتبع سلام يا مر صدق دايمون بين نقول هاي مين هو لما بيرون لما الحدباء يا ملاح الحسنة انت هو عن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرصة كلا دورية نهلك الجديد تصديق أفعال الله إلي روح الرعا ولدي waxaa laga yaabaa had iyo jeer xafladahan oo kale markaan nimaadno wax yuriya guddiga garxajis laakiin maanta mid baan idin sheegayaa guddigii garxajis waxay isu bedeshay guddi heer qaran kadib markay dabooshay baahiyo badan oo koone ilaa koona ah Somaliland iskastoo goolmoodna way u doodaa wixii ay dowladoodu ka qaladana way ka daba qaybisaan markaa guddigaasi heer qaran bay noqotay xildhibaanada soo socday doonaa haddii aan la yidhaha sida heer qaran ku noqotay bulshadana qaybo badan baa u markhaati furaya dabeedna waa bulsho guddidaydu waxay noqotay guddi heer qaran imika maxamed cabdilaahi cirra markuu yimaado waxay ogaan doontaa sidaa kaa maanta aan uga daba qaylinayno allo waxa ka qaldabaysna waa ka daba qaylinayna waxaa oo fadhiye heer qaran bay noqotay soo ogaadataa taas waa taa waa talamaada labada xildhibaan aan u soo noqdo labada xildhibaan xasan cabdi maxamed wuxuu sifayn badan waxaan ku yahay magaca mujaahid xaq wuxuu yeeshay inuu ku bedelo xildhibaan in badan oo lamidoo ka horeysay magacyo oo madaxweynayaasha meesha xukumiya ku jira magacaas uu meetelka sanadkiisa xaq buu leeyahay inuu halkaas soo gaadho marka waa u hambalyeynaya in insha allahu tacaala gaaro maca dalika saasoo kale muuse maxamed ducaale wuxuu intada ku soo shaqeeyay waa aqoonyahayo weliba qaybta bini'aadamka ugu muhiimsan buu ka soo shaqeeyay waxay qaybaha waxbarashada ummadda oo dhan buu caqligooda soo korinayo wax soo koraya inay israa'iil uu teetankii ku bedesho odayaashii yidhaahdeen waan idin garab taaganahay annagu cuqaal ahaan mustabeedna waa idin nahay waanaanu idin la ilaalinaynaa haddii ilaahay idhaahdo waxa weeyaan labada beeloodba waan isku haynaynaa idanka alle waxaana rajaynayaa labada beelood ee halkan isugu yimi waa laba beelood oo qiimo badan oo mug iyo miisaan ku leh waddanka gaar ahaan caasimadda somalilan ee hargeysa ama guud ahaanba gobolkaba waxaan rajaynayaa inaanu arrinkeenu aanu noqonin doorashada qura inaynu isugu nimaadeen waxyaabo fara badan oo waxa weeyaan kale inaynu ku midowno oo aynu isugu nimaadno ayaa la doonaya waxaynu wada ogsoonahay quwadaha caalamka ugu waaweyn ugu miisaanka badan ayaa midooba aynu dhaafno oo aynu isku xidhno guud ahaanba somalilan ayuu taarkiinkeenu yahay haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aadna waa umahadsantihiin fadiltum wadaaba mamshaatum watakuwa عبد الرشيد هذا تهاي يوم حفلات هذا تهاي محل لا كستات تور أول مرة هذا أكثر كتوها ضيا وحلا هاي قول يا بني ترى هاي تورك لو أنا مشرف وحلا بدل عليا أنت عالم هذا كفردا يا أنت كلامك أنت حالك أو صار حينه صار كامله أنت مشرف إذا كشرف أنا بدون مرينه إن شاء الله بإذن الله أكيد مطلوب الله وكيف علينا تلاقي يدعو فحسن تلاقي يدعو مرة تلاقي يدعو المسلمين علينا وأنا نريد علينا وأنا نريد علينا إن شاء الله إن شاء الله لبدا بقول وهذا كريم يحكم بهذا وهذا اللي لا يعني
موسى أيوه حسن عبدي ومحمد مشاهدك وإلى المصنع أستاذ هران وشباب كل معايا لكن ما توقفت يصندوق يا ريس يسيرين أنت اللي لا ترى ده وبلاش كده شعبك كله كريم أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا بتفضل جودي طلعنا سيجارة نوع بليني عملي على الزلال. فقط السرادين بدل حاجات مقابل هذا. ما بتشوف صدق أنا بقول. وانا عمليان ين ورجل ملي هذا بلادان وراني كيلو بسكت قاعد xildhibaanka golaha baarlamaanka waa seefta guushay ka tugtutaa waa seefta islaamka waxaan isleenahay halkaa waxaa ka muuqata wiil baa ka muuqata iyo inaydaan calaamaddaa gara waayahay calaamadda labaad waxa weeyaan waa 314 waxa weeyaan iyaduna waa calaamadda asxaabtii dagaalkii beler ayana waxaan isleeyahay waa guul weyn oo kale ayuu xildhibaanka golaha deegaankuna uu sitaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa labada xildhibaanba inay noqdaan laba xildhibaan oo guulaysta laba xildhibaan oo xilkooda ka soo baxa laba xildhibaan oo isku xidhka labada beelood midnimo بارك لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وبالخير وبالخير. عبد الرحمن سودوا ودكتي المغل عبد الرحمن قريس أبود كاقر الأمر سلك الكيد منهم سامقاتشو سلك كرمونيهم سامقاتشو عرو شكلوا لهم عبمات كرسي ولي دعوة أدوسون لقل داين أبد انتو سحالا كل حي ينسينا قوة وحصلي يا موسى الأباد رسم غلا وموضوعين إنايدان ولا نستان وموضوعين إنايدان جوالنا وموضوعين إنايدان أقبلوا وموضوعين إنايدان أقبلوا سيدنا إلهي كبر يا ساعة الإجابة قد يقول وفرانيتا لكن سلطان عبد الرحمن روحنا قاعدين ونقبل أي سيء كيس ومبرشة صدق إلا باش صوت قوم بساطة هذا المبرشة يسمى الله هذا دعلان وقرأ على ليسا وهو يقرأ كدما كلام أيها كدما جواب سيدا كلام كلام وفرط لنا سيدا نبوش يسكر التاجو سلطان بلبل عبد المدور الجوزي إنبو إلا بيها يساعد ومشى يعني سوى لنا طرطور على نوع اللي أبوه بيوبيني وإنه كانوا مشرف كانوا مشرف أنت كلام ساسو كلام وعلى هم بيلي يبادين عن لا لا هم بيلي يبادين أنت هم ما تبغى أنا واحد مضطر إلا كلام استعجوا بقول كيما بقول قريبا شهدان دكتور تمام وحنا اللي نركب فايدس
waxaad soo ogaataa haddaad guulaysato aadayso xariifin nimankan waa nala deegaano waa nala ardaayo Siskan ku baryaaya isiga kuwaan garaha la suraa bale gabarka suro dirinka awlatigiisi lagu dumjo lagu tegayayo lagu tega lagu tega calanka sida rabkadii lagu raqayo calanka loo soo halgaamayo nahariyayo calanka sida garaweyn hoosta laga galo calanka Somaliland sameeyo qaadayo haweenku dirsadayeero kay dushayda joog haweenku dirsadayeedna daayinka dhicin maxaa keena qofka intaynu dooranno ilaa madaxweyne ilaa wixii ka hooseeya saldhigga jooga siduu doonorta tartaray war maxay tahay wadacaygaas ma cadaaladaynu doonaynaa ma mujaahidnimada raggan u soo dhintaanba masaasaa waxaynu u baahannahay inaynu xuduudeenna muujinno aynu cadkeenna ku dhacsanno in cadaalad iyo sinaan meesha lagu maamulo aad iyo aad baa dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamay annagu waxaanu idiin sheegnay daraf ilaa daraf hadday dagaal qabaa'il dhexdooda tahay hadday boodmooniya qaab jeelasha ku jira tahay hadday isin kastoo maanta Somaliland waxa ka taagan guddiga iyo labadii waa ka qaylisaa aad bay uga qayliyaan guddigayada iyo labadii aad bay uga qayliyaan waa sababta aan doonayo hadhow inaan ku doodo golayaasha baarlamaanku markay soo baxaan hadduu qaar barakaysan ilaahay noo keeno anaa waxaasaanu mutaysanee heer kale noo aqoonsada war garxajisnimada ku shaqeeya baan ismee maalin ka badan baanu aragnay oo dayacaada oo dadkii duloobeen aad iyo aad baan idiin salaamaya guulaysta baan idin leeyahay intaas waa inta wax yare waa shucuurta igu jirtay uma jeedin laakiin waxaan arkay weeyaan iyo dayacayo muuqda waxaan leeyahay guulaysta labada arkaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaa burcays fadhiiseen oo lugtaa fadhiiseen haddii tiriibkan insha allah guulaysataan waxaan la doono haddii qoladaa ku dada isfalaaliya oo qaan ku qabsada sida cabdiraxmaan noogu qabsaday aad iyo aad baan idiin salaamayaa wabilahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo dhammaan hoggaanka xisbiga ee la socday ee kaadirkiisa labada meelood ee mugga iyo miisaanka leh ee maanta halkan labada xildhibaan iyo galbelayaan keenay waxaan si gaara salaanta u raacinayaa bahweynka haweenka ee labada beelood ee b barwaaqo sidii halkan laga sheegay ayaan ayagana si gaara u raacinayaa dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام marka hore waxaan ku horeynayaa labada beelood ee halkan ku midoobay labada xildhibaan midnimadu waa wax diintu aad ugu dheeraatay isku duubnida wax wada qabsiga iskaashiga iyo cududda midka ah waa waxa diintu aad ugu dheeraatay ibni aadanka laga doonayo inay muruqooda midaayaan siday u qabsadaan labadan beeloodna waxaa ka muuqda inay maanta culidoodii iyo maalkoodii ay ku mideeyeen in ay wax kasta oo labada reer dhex mara ay ku midoobaan oo labada kor ka yihiin horumarka iyo waxyaabaha kale ee baahiyaha halkan uu ka calaacalayo makacado guri uu lahaa markii hore guddi reer baanu nahay laakiin waxaanu aragnay qaran dayacan waxa weeyaan dayacaadda waxaa lagaga bixi karaa waxa weeye waa isku duubni waxaan idinku hambalyeelaynaa inaad la timaadeen dariiq cusub iyo waddo cusub
iyo weji cusub aa u jeexdeen dhammaan beelihii Somaliland waxaynu ku beeshay leeyihiin labadan beelood ee aan lagu dayday annaguna haddaanu guddiga nahay waxaanu idinla garab taagannahay inaan maanta lagu fadhiyo ee ku guulaystay ee u soo dhaawacmay ee u soo dawooreegay ayuu ka mid ahay waxaanu u kitaabay shaqooyin badan oo ay ka mid ahay inuu ahaa guddoomiyihii jumciyadda Sooyaal ugu muddada dheeraa ee ku soo hoggaamiyey si sharaf iyo karaamo leh kuna wareejiyey xilka isagoo oo ay gacaa weliis haystaan tiimkiisii uu ku hoggaaminayey oo wax dhalinyari dhex marin horaa loogu soo jeedo waxaan leeyahay maantana halkaad u socotaa waa halkii qaranka laga toosinayey waa xeertejintii waxaa lagaga baahay inaad sii labalaabto juhdigaagii iyo dadaalkaagii halka kale waa xildhibaanka golaha deegaanka oo ah muuse maxamed ducaale oo runtii ah macallin aanu saaxiib nahay oo siday soddonkii sannadood u dambeeyey muuse maanu kala fogey muuse macallin weyn buu ahaa runtii oo dalka gudihiisa iyo dabadiisa macallimo kaga soo shaqeeyey waa halka qaran laga dhiso tacliintu waa halka dad laga toosiyo tacliintu waa halka maskax iyo laga soo saaro muruqa waxaan isleeyahay waa labadii qof ee looga baahnaa labada gole ayuu ordayaan ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ku guuleeyo ilaahay guusha siiyo waxaan isleeyahay sida la sheegay calaamadahooda aad baa laydinku celceliyey waxaa maanta laydinka baahayna calaamadda xifdidaan inaad qaataan inaad xifdidaan oo qura maahay waa inaad gudbisaan oo aad qaataan maanta waxaa bishu waa 15 waxaa ka dhiman 16 casho maalinta xifdidaan waa lagu heliyaa waa 15 casho oo maalmihii fasixida ku jira waxaa idinka baahaya u diyaargaroodaan labada xildhibaan sidii u soo saari lahaydeen ay ugu diyaargaroobi lahaydeen labada calaamad dhammaan shacabka reer Somaliland bari iyo galbeed meel kasta oo ay joogaan xisbigu maanta wuxuu u soo sharaxay musharaxiin qiimo leh 20 degmo doorasho iyo 82 xildhibaan ee golaha wakiilada u sharaxanba xisbigu wuxuu noqday dadkii ugu qiimaha badnaa inuu soo sharaxo labadan musharaxna waxay ka mid yihiin musharaxiinta qiimaha leh ee uu xisbigu u xushay in ay isu taagaan doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Hargeysa halkan waxaa laga sheegay baahiyo fara badan iyo dhibaatooyin waddanka ka jira oo guddoomiyihii guddiga oo carabka ku dhuftay waxaasoo dhammi waa wax jira waxaana mas-uul ka ah ummadda dhammaan shacabka reer Somaliland bari iyo galbeed meel kasta oo ay joogaan xisbigu maanta wuxuu u soo sharaxay musharaxiin qiimo leh 20 degmo doorasho iyo 82 xildhibaan ee golaha wakiilada u sharaxanba xisbigu wuxuu noqday dadkii ugu qiimaha badnaa inuu soo sharaxo labadan musharaxna waxay ka mid yihiin musharaxiinta qiimaha leh ee uu xisbigu u xushay in ay isu taagaan doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Hargeysa halkan waxaa laga sheegay baahiyo fara badan iyo dhibaatooyin waddanka ka jira oo guddoomiyihii guddiga oo carabka ku dhuftay waxaasoo dhammi waa wax jira waxaana mas-uul ka balankeedu waa maalinta codaynta way soo baxaynaa sidaa ay u soo buuxiseen ciyaarta iyo mataqaanaaye dabaaldega iyo banaanbaxyada waxaa ka muhiimsan wadayga doorashada ha seexanina meel ha qabanina shaqo kale ha qabanina hataa maalinta ha xanuunsanina aad iyo aad badan salaam baasha labada murashax beelweynka haweenka dhalinyarta dhammaan inta ka joogta ee b b iyo inta
كبادي طن السلام يا وعن كواس كارو السلام يا سودان جود لبض خير سلطان عبد الرحمن iyo gudoomiyaha hool qaadaya ma jiro ayna musaabax hayno hadii ay waxa weeye xagga kama iman baa leenahay hadii ay soo bilowdo dhacdo way dhaceen ama hadii xagga wada laga xarayo oo wax laga xira xaray way leeyin oo koobiyada sabay dalanteenu iyo labada xildhibaan qof walba waxa tareysanataa inaad laba cod leedahay markaad meesha gasho هو قلت يبدأ شقف طلع قف ما يسوقه تنسب تلامة تنسب كذا نحى بدونها أولئك كلها إلا بي مركا وحوله وحنا بالله هاي وقت فلتي الواقع فرينا وحنا نطريها قلنا حسب هذا زمان يكتب شروطي وعم تكتبنا يا مركا وهنا رئيس زمان تاجا فريدا يجوا كم موجود تيجي عن تقول يعود كذا أنا يقول باقيتا إن نفسي أنا أقول بيجي رئيس زمان الله أهلا وما تتني والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله عليكم. مجاهد حسن مرشح حسن أمرنا مجاهد طاهر معنا طاهر مسألة كورية شارك كسري وبدأ يروح الجنة يتفهم الجنة أبي أبي المسلمين وبيروح سلام عليكم سلام عليكم. هو الرئيس الجمهورية حسبك دماء محمد عبد الله العبرو وقاق حسبك تراديتك كودك العزيز هويك مرتشرف برلمانتي وعلى السلام يا شباب اسمعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى ما انتم عارفين عملتي كاعنتا ويا مشرع يقول حاجتها كده يقول عبارة يقول هديك ان شاء الله تعالى انا عملتها كده هيقولها برلمانك golaha hadda laba saa la sheegay waa halka waddanka laga haga shuruudiisa iyo laga toosiyo xiiq loocan laga soco waa wada ogtiino Soomaaliland waxaa laga keenay meel dheer oo furba laga keenay 30 sano iyo siyaadada maanta waddanka haysanaa ku jira way garanaysaa wixii laga dagaalamay laga soo laga dhiibiyey magacii hore Soomaaliya weli jiray ay lagu hadlo iyo maarba hore waddanka la soo noqono ula baxna magaca Soomaaliland doonay isu taagno wala qoyskeenu helay dibadda ku jira runtii maanta ma joogno goran asxaabana cadaalad darro ku cabanay waxay dhamaanteen cadaalad sameeyno oo soo miisaan ugu gaarnay inay guusheena inuu isu filaanaabay waddanka runtii loo halgamayay lama haynin dhaqaalaha quruxda ma haynin aan ku dagaalanay leeyahay miyiga joogay reemiga hayo bay mucunayay dawladna ma caawin haytii waxaan u baahanay maanta macnaha waddanka qabsanay xilliga cadaalad ma jiro cadaalad ma caban hay نفيا ما برضو ولا مدرسة رئيس الملان ما أنتنا وحنا بهاي نفيا ما بينهم مدرسة سيدي وتكلم هو المرني بعدين هاي عتابة الله تقال من هاي سوق هرب سعون هاي تقال كيف تجربين تبعثي علنا بربعهم تقال قرآن باير هو سعودا هو اللي تقال مني هو سوا حيتين وين هو سوا كورين وين هذا العيان وحنا بهاي هاي تقال كعب بينك يا رسول الله من ذاك بين لو يقولي كانوا حيتين بيننا وقعوا حسنا عتابة الله تقالنا مسلمانك أيه كل الشيء أيه وتكتله لا تقال له سورينا قف والله واحد وكفري دولة بروبيسو رودي لا يوعى له باي مضى على قدر كتيرة يقول لك صلح على شعب كتير شعب كوباي مضى حساب كمان مضى على المياه تجسا هي الحلبانية هي بالحوالي أيه كسوية ولا سبب وايو كوية اللي يشوفان إنك إنك صلح بحال هذا هو مش عندك جاي إنك هرب معه لكن حديث لك هرب سودي سودنا بيجينا أنا كنت أحب دلال الدنيا لبي في الحلبان وقلها برلمان إمري الدنيا إن شاء الله تعالى كم من نقطة إذا ما أنت روح برشين إلى حق يا عتالة تسوقه كل تكنا لا تكلم مسلمان سي عتالة لا تكلمان سكول أهجاتيان تفيس حنا رتي هتاجر وحنا كتكلمان رتي واحد تكلم الدنيا يركب حم أول تكيف وحيينا إياه runtii waxaan cudun doonaa xeerar waddanka iyo dalka waxtaraya waxaysan ayaa cudun doonaa waxaan ka dagaalami doonaa kuwa magacyada marka gobashana yaala leedo muusho qubtaya runtii naanaysaa waa la dagaalami doonaa waana ka hor igu dhowrunta aad iyo aad